بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. waxaanu meeshaan ka bilaabaynaa insha allah maanta oy taariikhdu ku beegan tahay 2008 bishii waxa weeye 9aad oo maraysa 27 Sebtembar oo maanta 27 maraysa kitaabka loogu magac daro Xayaatul Islaam في معرفة صفات الله وصفات رسوله الأعظم صلى الله عليه وسلم. كتاب لوغو مقعدرو حياة الإسلام نولوشا إسلامك. كتاب كان وحو ردعو يهي أما أو كبلابانا يا طبان كتاب وآن ربنا إن شاء الله سدبتشوغا إنا نقاضنو طبان كتاب وحي كليهين حياة الإسلامك iyo 7 kitaab oo la yiraahdo sab'ul aqaa'id oo isku dhagan oo isla socda oo aqeedada islaamka iyaguna ka hadla. kitaab yar oo asna la yiraahdo aqiidatul awaam oo asna aqeedada ka sheekeeya iyo siirada rasuulkaba, iyo kitaabka tobnaad oo noqonaya kitaabka tobnaad oo asaguna noqon doona aqiidatu tahawiya insha Allah ta'ala. tobankaas kitaab ayaanu qaadan doonaa insha Allah markay dhamaadaan qof walbaahi ayagoo insha Allah ku jira website-yada iyo meel walba ayuuna insha Allah ka xafidi doonaa qofkii darsiga intuu socdo haleelin waaye insha Allah. kitaabkan ugu horeeyo Xayaatul Islaamka la yiraahdo wuxuu ka kooban yahay su'aal iyo jawaab. waa su'aal lagu weydiinayo iyo jawaabteedii. su'aasha marka lagu weydiinayo siin baa ku qoran. siinku wuxuu u taagan yahay su'aal, jiimkuna wuxuu u taagan yahay jawaab. waa su'aal calaamatu su'aalkaad ka garaga doontaa. siinku sidaas u taagan yahay, jiimkuna waa jawaabtii su'aasha lagu weydiiyo sidaad uga jawaabi lahayd baa kitaabka ku qoran. kitaabkani wuxuu ku bannaan yahay musaabaqa ama tartan dadka cilmigooda hoos laga soo dhisayo lagu macnaha waxa weeye barbaariyo ama lagu soo kobciyo ayuu ku bannaan yahay ama macnaha waxa weeye oo ku habboon yahay. kitaabkan su'aalaha ku qoran haddii aanu soo hormarino waa 108 su'aalood. 108 su'aalood iyo 108 kaas su'aalood jawaabahooda ayuu kitaabkaani qoraa. kulligiis waxaa loogu talagalay su'aal iyo jawaab in cilmiga lagu xafido. wuxuuna ka hadlaa kitaabkaani 3 arrimood. ilaahay subxaanahu wa ta'ala tilmaamaha u waajibay sida ilaahay inuu yahay alla qaadira, alla wax maqla, alla waxa weeye wax walba og, wax walba awooda, ilaahi waaxida, sifaadka ilaah u waajibay iyo tilmaamaha mustaxiilka ka ah ilaahay oo aan lagu tilmaami karin oo ka sheekeeya. tilmaamaha aan lagu tilmaami karin ilaahay oo haddaad ku tilmaanto islaamnimadaada ay dhibaato gaarayso. kitaabkaani wuxuu sidaas oo kaleeto ka hadli doonaa ilaahay sifaadka jaa'iska u ah. ilaahay inuu na abuuro, ilaahay inuu na dilo, inuu wax na siiyo, qofka siduu doono inuu ka yeelo ilaahay waa u bannaanta. waajibna kuma aha, mustaxiilna kama aha, jaa'is baa la yidhaahdaa. wuxuu kaloo kitaabkaani ka hadli doonaa tilmaamaha ambiyada nabigeenna ama ambiyadoo dhan in ay run sheegaan, beentu waa ka mustaxiil, caqli bay leeyihiin, in ay noqdaan dad caqli daran waa ka mustaxiil. waxa oo dhan waa ogaa doonaa. wuxuu kaloo kitaabkaani ka hadli doonaa siirada rasuulka sallallahu calayhi wasallam oo lagu su'aali doono nabigeenna awlaadiisii, caruurtiisii, abtiriskiisii, meeshuu ku dhashay, meeshuu ku geeriyooday, tilmaantiisa, qaabku wax uu cuni jiray, siduu wax uu cabi jiray, nabigu siduu u yeelay, muuqaalkiisa, dhirirkiisa, macnaha intuu yahay kulligeed sifaadka nabi Muhammad عليه الصلاة والسلام. kitaabkani waa ka hadli doonaa. kitaabkani wuxuu kaloo ka hadli doonaa xayaatul islaamka la yiraahdo, caqiidada qaybta samciyaadka la yiraahdo sida waxa weeye qiyaamada, qabriga, miisaanka, acmaasha la miisaamo, xisaabta maalinta qiyaamo, kulli wuu ka sheekay doonaa. waxaanu insha Allah qaadan doonaa maanta haddii Ilaahay idmo darsigiisii koobaad xayaatul islaamka. darsigiisii koobaad ayaanu qaadanaynaa
waxa weeye maanta ayaan dersigiisii koobaad qaadanaynaa. taariikhda kitaabkan oo noo bilowday taariikhda hijriga ah waxay maraysaa 1429 bishii sagaalaad oo ramadaan ah baa maanta weliba waxay maraysaa 27 taariikhda miilaadiga ahna waxay maraysaa 2008 bishii sagaalaad oo September baa iyaduna waxay maraysaa 20 iyo waxa weeye 7 iyaduna sidaas maraysa. marka waxa weeye waxaa noo bilaabanaya kitaabkeennii xayaatul islaamka la dhihi jiray, waana kan kitaabkii ee dhammaanteen aan ku soo dhowaano aanu ka faa'iidaysano bal xayaatul islaam sida loo xafidi karo iyo culumta laga baranayo annagaaba insha allahu arki doonee. bismi illaahi araxmaani araxiim. ilaahay magaciisa ayaanu ku bilaabanaynaa. wax walba ood bilaabayso ha halmaamin walaalkayow inaad ugu hormarido magaca ilaahay, leanna nabigeenna suubani calayhi salaatu wasalaam wax kasta oo bilaabayo wuxuu ku bilaabin jiray magaca rabbi subxaanahu wa tacaala. shayga lagu bilaabaana wuxuu noqonayaa shay barako badan. ilaahayna waxaanu su'aalanaynaa 10kaas kitaab oo aan ballan qaadnay oo xayaatul islaamka ugu soo horeeyo biidni illaahi alkariim, ilaahay inuu noo sahlo, noo fududeeyo, cilmi barako badan nooga dhigo, cumri aan ku akhrisanno oon ku camal falnana ilaahay uu nagu siiyo, oo dhammaan caalamkao dhan kuwa ku faafa oo wada gaara meel walba adduunka ilaahay uu ka dhigo, muslimiintana uu ka dhigo kuwii xafida oo ku gargaarsada, annagana ilaahay naga dhigo kuwii aakhiro ku intifaaca. kitaabka intaan la bilaabin waxaa loo hormariyaa aayaad ama axaadiis. aayaadka iyo axaadiistaas waxaa la yidhaha baraacatul istihlaal baa la yidhaahdaa. bimacnaa waxay ku barayaan kitaabkaani wuxuu ka hadli doono. kitaabkaani wuxuu ka hadli doonaa islaamka shay anfacaya. waxaa loogu soo hormariyey aayaddan waradiitu lakum alislaama diina. ilaahay baa wuxuu yidhi waradiitu lakum alislaama, waxaan idinkaga raadi noqday islaamka diinan min diinin xagga diin ahaan. bimacnaa islaam buu kitaabkaani ka hadlayaa. isaga dhan baa waxaaba la yidhaahdaa xayaatul islaam, noloshii islaamka oo ka hadlaysa fii macrifati sifaati illaah, sifaadka rabbi oo la barto, wa sifaati rasuulihi alacdam sala allahu calayhi wasalam, iyo sifaadka suubanaha oo la barto. aayaddaani waxay ku jidhaa suuratu lmaa'ida. alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii wa radiitu lakum alislaama diina. waa qur'aan, aayad qur'aan oo suuratu lmaa'ida ku jidha weeye. bismi illaahi araxmaani araxiim. ina addiina cinda allaahi alislaamu. ilaahay wuxuu yidhi ina addiina diinku cinda allaahi rabbi agtiis alislaamu islaamka weeye. diinta ilaahay raadi ka yahay oo in lagu camal falo ilaahay noo oggolaaday oo ilaahay noo abuuray waa islaamka. diin kale oo ilaahay ou raadi ka noqonayaa ma jidho. aayaddaasuna waxay ku jirtaa aalu cimraan, suuradda la yidhaahdo aalu cimraan. aayad kaleo waxaa jidha iyadana suuratu aali cimraan oo ilaahay uu leeyahay waman yabtaqi kayra alislaami diina falan yuqbala minhu wa huwa fi alaakhirati min alkhaasiriin. qofkii diinta islaamka diin aan ahayn diin ahaan u raadiya laga aqbali maayo. wa huwa fi alaakhirati min alkhaasiriin, aakhirana wuxuu ku jiraa qolada khasaartay oo hoog iyo ba u soo hoyaday ayuu ku jira. allah naga badbaadiye. su-aasha koowaad oo kitaabkanna su'aalay maa huwa diinu, diin waa maxay? horta diin baan baranaynaa baan dhahnaye haddii aanu diin baranayno waa maxay diini? jawaabteeda waa lagu barayaa maa huwa diin markii in lagu yidhaahdo waxaa laga yaabaa in aad gara weyso meelaha aad fiirfiiriso ama su-aashii aad si qaldan uga jawaabto, laakiin kitaabkaana baraya. diin waxaa la yidhaahdaa waa tan. diin waxaa la yidhaahdo waa tan oo halkan bay noogu qoran tahay, kitaabka ayaa noo sheegaya. bimacnaa diin markii la yidhaahdo luqa iyo sharci bay leedahay. luqada kitaabku ma qorin. luqada waxaa la yidhaha mutlaqu linqiyaad lilaxkaami sharciya. axkaamta islaamka diintoo la qaata baa la yidhaahdaa. diin waxaa luq ahaan laga cabiraa adeecidda, cibaadada, jazada, xisaabinta. laakiin sharcigu waa sida meesha noogu qoran. diinna marka la leeyahay macnaha waa wixii laga diin yeesho. millana waa la yidhaah. milla marka la leeyahana malaggaa nabiga u meeriyey saasaa millo loogu magacaabay.
sharcina waa la yidhaah maxaa yeele ilaahay baa noo jideeyey sharaca lakum min addiini ilaahay baa noo jideeyey marka waxa weeye diin iyo milla iyo sharci waa isku ujeedo laakiin diin maxaa la yidhaah waa nala barayaa waatan aljawaab addiinu diin huwa diin maa baa la yidhaha sharacahu allaahu ilaahay ou jideeyey calaa lisaani nabiyihi nabigiisa carabkiisa ou noogu jideeyey oo min alaxkaami axkaama xugumyaalka ilaahay nabi moxamed noogu soo dhiibay sida salaada sida soonka sida sekada dahaaro qaadashada wahaakadaa baa diin la yidhaahdaa oo maxaa ka mid ah wadaalika kaafta waa mihaal ka macrifati sifaati illaahi waa sifaatka ilaahay oo la barto waa diin wasalaati salaada oo la barto waa diin wazakaati xoolaha oo sekada laga bixiyo waa diin su-aashii koobaad iyo jawaabteedii baan qaadanay su-aasha labaad maa hiya maxay tahay umuuru diini diinta calaamaadkeedu waa maxay ay calaamaatu wujuudihi diinta in ay jirto oo qofkaani diin leeyahay calaamooyinka lagu gara karaa waa maxay jawaab umuuru diini arbacatun diinta calaamooyinkeeda iyo umuurta lagu gartaa waa 4 calaamo 4 astaan markii qofka laga helo waa qof diin leh laakiin haddii calaamooyinka laga waayo diin ma laha 4 calaamoo lagu gara karaa waa maxay sixatul caqdi caqiidadiisu qofka inay horta ansaxdo kow wa sidqul qasdi qasadkiisa inuu ka run sheego labo walwafaa'u bilcahdi ballanta waa inuu oofiyo ilaahay ou la galay oo ballantii ilaahay ou ka soo baxo iyo waajibaadka ilaahay u dardaarmay 3 wajtinaabu lxaddi xadka oo laga fogaado bimacnaa ilaahay xuduuddiisa inaadan ku xadgudbin wuxuu ilaahay xad u yeelay oo ku yidhi ha u gudbin ka dheeraw wuxuu rabbi kaa reebay zinadii khamradii beentii ka fogaaw waa umuuru diin 4taa weeyaan 4toodii baa nala barayaa marka waxa weeye 4toodii baa nala barayaa su-aasha saddexaad maa macnaa sixatu lcaqdi caqiidadiisa qofka caqiidada ansixiddeeda macnaheedu waa maxay bimacnaa sixatu lcaqdi maxaa looga jeedaa jawaab macnaahu waxa weeye aljasmu go'naan oo qofku go'aamiyo oo niyada iyo qalbi ka go'aamiyo bicaqaa'idi ahli sunna caqiidada ay aaminsan yihiin waa inaad aaminsanaato caqiidadii ay aaminsaneed muctasilo ha isku aaminin caqiidadii ay aaminsaneed murji'ada ha aaminin caqiidadii ay aaminsaneed raafidada ha aaminin caqiidadii ay bidcooyinkaa iyo kuwa maanta jidkoodii ku taagani ay qaateen oo dhan lama aamino waxaa la aaminayaa caqiidatu ahli sunna waa inaad jasmido ood aaminsanaato caqiidadii ahlusunna waljamaaca haddaba waxa weeye marka la leeyahay sixatu lcaqdi macnaahu aljasmu baa looga jawaabay waa go'in oo aad macnaha go'aamidoba qaadato bicaqaa'idi ahli sunna caqiidadii ahli sunna caqaa'idda ahli sunna waa maxay waa nabigeennun calayhi salaatu wasalaam caqiidadii uu noogu yeedhay in la aamino oo la rumeeyo oo tilmaamaha ilaahay iyo nabiga iyo macnaha aakhirada ka hadlaya weeyaan ahlu sunnana waa maxay ahlu sunnadu waxa weeye waa qoladii ilaahay ku kulmiyo ictiqaad waaxida hal asal ku wada socda oo ahlu sunna maxaa looga jeedaa waa qof walbo fa sunnatu dariiqu rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam fa sunnatu maa sanna sayidunaa muxamed waa sunnadii nabi muxamed sunnadu jamaacaduna waa maxay waa dariiqatu asaxaabati waaltaabiciyiin waala'immati almujtahidiin baa la yidhaahdaa marka qofkii raaca waddadii nabigeenna calayhi salaatu wasalaam iyo waddadii asxaabta waddadii taabiciinta waddadii taabicu taabiciinta waddadii madaahibta islaamka mujtahidiinta ah oo waddadaa aan dhinacna uga bayrin oo caqiidadaa sidaa u aamina baa waxaa la yidhaha ahlu sunna baa la yidhaahdaa ahlu sunnuhu waa magac looga bedelnaado bidcooyinka dadka waa ahlu sunna iyo ahlu bidac wax kaleeto oo la yaqiin ma jiraan dhammaan ahlu xadiidka ahlu waxa weeye ahlu fiqhiga usuuliyiinta
naxwiyiinta mufasiriinta culummada islaamka oo dhan waxay soo wada galaan ahlusunna waljamaaca soo wada galaan ahlusunna bay soo wada galaan laakiin inta ka soo hartay ahlubidac baa la yidhahdaa saddexdii qarni wixii ka dambeeyey waxaa hogaaminayay ahlusunna oo magacaan looga jeedi jiray al-ashaacira waalmaaturiidiya looga jeedi jiray maxaa yeele caqiidada nahjiga ee saxaabta iyagaa ku tadwiiniyey ashaaciraduna waxa weeye abulxasan alashcari dadka macnaha waxa weeye ku xiran cali binu ismaaciil ibnu bashiir ibnu isxaaq ibnu saalim baa la yidhaahdaa abu muusa alashcari ayaa wuxuu u yahay awoowe u noqonaya abulxasan alashcarina waa macnaha waxa weeye waa shaafici weeyaan wuxuuna ku dhashay magaalada la yidhaha basro taariikhdu markay ahayd 206 wuxuuna geeriyooday 334 sida raajixa ah maaturidiyaduna waa abi mansuur almaturidi moxamed bin moxamed alxanafi sheekh la yidhaahdo dadka ku xiran baa la yidhaahdaa marka calaa xaasil waxa weeye caqiidadii saxiixa aheed oo ahlu sunna waljamaaca qofku waa inuu ku taagnaado oo go'aamiyo oo dhinacna uusan uga bayrin ahlu sunnana waxaa soo gelaya cilmu tawxiid wanubuwa dadka a'imada u ah cilmu lfiqhiga dadka aaminsan oo macnaha hogaamiya culummada cilmiga xadiidka culummada carabiyada culummada la yidhaahdo qiraa'aatulqur'aanka culummada la yidhahdo culamaa mufasiriinta cilmu tasawufka mujaahidiinta dhammaan way soo gelayaan ahlu sunna waljamaaca baa dadkaas oo dhan la yidhaahdaa wa hiya firqatu naajiyatu waana firqada nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam markuu yidhi ummaddaydu waxay u kala bixi doontaa 73 qaybood 72 qayboodna ahlu naar weeye halka qayb ilaa hal qolo maahan oo nabigu yidhi halka qolo oo yihiin baa le qoladaas markaasuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam waa qolada ku taagan maa ana calayhi wa asxaabii anigii asxaabtaydu waddada aan marno qolada ku socota weeye allaha nagu daro qoladaas baa waxaa lagu fasiray oo ayaga aan bidcooyinka iyo waddada baadilka weligoodba raacin marnaba aan isbedelayn magacooda iyo caqiidadooduba ahlu sunna waljamaaca la yidhaahdo alfirqatu naajiyatu ayagaa lagu tilmaamay ilaahayna ha nagu daro kuwaa wanaagsan oo sunnada nabigeena calayhi salaatu wasalaam dhab ugu socda dhammaanteen allah ha nagu daro qof walba ood waddadaa wanaagsan aaminsan baa ahlu sunna la yidhaahdaa ma lahan magacaani qof gooni ah iyo xisbi iyo guruub midna ma aha dadka ahlu baadilka ah oo ahlu bidaca ah oo maalinba magac cusub la baxa oo ilaa nabi moxamed ilaa waqtiga asxaabta soo jiray oo ilaa yoomina maalinba firqa cusub iyo koox cusub soo baxaydo lama yidhaahdo ahlu sunna lama yidhaahdo diintana ayagu ma matalaan iyo waddada xaqa ah laakiin ahlu sunna waa dadkaa marnaba aan isbedelin oo abadan aan waddadooda saxdaa ka qalloocan dadkaas baa la yidhaahdaa iyo qof kastoo waddadaas ku taagan magacaasu wax ku leeyahay weeyaan ilaahayna ha nagu daro waa inuu qofku caqiidadaas ku go'naado oo ku taagnaado su-aasha afaraad maa macnaa sidqi alqasdi qasadkoo laga run sheego macnaheedu waa maxay jawaabteedu macnaahu macnaa sidqi alqasdi waxa weeye alcibaadatu binniya niye ahaan cibaado in lala yimaado binniyati maca aniya iyo walcamalu camalfal oo bilikhlaasi maca alikhlaas waa cibaado niyad iyo camal oo ikhlaas liwajillaahi loo sameeyo waa inuu qasadkaaga aad ka run sheegto waxa weeye inama alacmaalu binniyaad waa inaad ku taagnaato oo waxaa looga jeedaa baa la yidhi qasadka qofku inuu ka run sheego waxaa looga jeedaa macnaheeda alcibaada binniya cibaado inuu la yimaado oo niyad fiicanna oo kula yimaado camalkiisana ilaahay daraa'addi oo ula yimaado ikhlaas laga helo saasaa looga jeedaa ikhlaas su-aasha shanaad oo kitaabkeenaan ku qoran xayaatulislaamka la yidhaahdo maa macna alwafaa'i oofinta macnaheedu waa maxay bilcahdi ballanta la oofiyo ballan in la oofiyo qofku waa inuu yahay mu'minba hadduu yahay waa inuu yahay qofka muslimkaa qof ballan leh oo ballamo ka xidhanto qofka ballan laawaga ah ma aha walaalayaal qof wanaagsan ma aha muslimku waa qof ballan leh wa awfuu bilcahdi ina alcahda kaana mas'uulan ballanta waa laisweydiinayaa qiyaamada laisweydiinayaa marka waa inuu ballantii oofiyo oo ka soo baxo maa macna alwafaa'i bilcahdi ballantoo la oofiyaa macnaheedu waa maxay waa su-aashii shanaad
jawaabteedu macnaahu imtithaalu awaamir illaah waa ballamada imtithaalu maa shay waa in la fartoomo amara allaahu ilaahay ou faray bihi maaga ilaahay wixii ou faray oo uu yidhi sidaa ha la yeelo salaada ha la tukado soonka ha la soomo runta ha la sheego ballanta ilaahay qofkii fartooma oo ilaahay amarkiisa qaata qofkaasaa wuxuu yahay qof ka run sheegay ballantuu ilaahay la galay makhluuqana ballanta aan uga bixin ilaahayna amarkiisa oofiya qofkaas weeye qofka diinta lihi calaamada afraad oo qofku uu lahaay waxay ahayd inuu xaaraamta ka fogaado waa su-aasha lixaad maa macna ijtinaabi alxaddi xadka oo laga fogaado macnaheedu waa maxay jawaab macnaahu waxa weeye tarku maa shay in laga tago naha allaahu canhu ilaahay ou reebay ilaahay wuxuu kaa reebay waa inaad ka dheeraato ha ku xadgudbin ilaahay wuxuu kaa reebay ka dheeraw su-aasha waxa weeye lixaad sidaasaa lagu tilmaamay su-aasha toddobaad maa huwa alislaamu islaam muxuu yahay islaam muxuu yahay maa huwa alislaam waa su-aal jawaab alislaamu islaam huwa islaam altasliimu hoggaansamid weeye aldaahiru ee muuqda limaa shay loo hoggaansamo jaa'a yimid min cindi illaahi subxaanahu wa tacaala ilaahay agtiisa wixii ka yimid calaa lisaani xabiibihi xabiibkiisa carabkiisa ku yimid muxammadin ahaa sala allahu calayhi wasalam ayaa la yidhaahdaa islaam waa maxay alislaamu huwa altasliim horta islaamku wuxuu leeyahay luqo iyo sharci luqada waxaa lagu yidhaha alinqiyaadu lilaxkaami sharciya axkaamta sharcigoo loo hoggaansamo waa alinqiyaad laakiin sharcigu waa sida noo qoran sharciga islaam waxaa lagu yidhaahdaa huwa altasliimu waa hoggaansamid aldaahiru muuqata lima shay loo hoggaansamo jaa'a yimid min cindi illaahi tacaala ilaah agtiisa ka yimid calaa lisaani xabiibihi xabiibkiisa carabkiisana ku yimid muxammadin ahaa xabiibku sala allahu calayhi wasalam nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wax walbou noo keenay oo salaadu ka mid tahay oo soonkuu ka mid yahay waajibaadka nabi moxamed ilaahay noogu soo dhiibow na soo gaarsiiyey waa in loo hoggaansamo oo xugunka ilaahay diintiisu nafartay la qaato oo kitaabka ilaahay lagu xuguntamo sunnada nabiga lagu xuguntamo xuguntanku waa maxay kitaabka ilaah isagaaba ku xugminayaba waxaan ka dheeraa waa kaa xaaraam waa xugun shaygaan sameey qaado dad muslim tahay u hoggaansan waa xugun salaada tuko waa xugun weese qaado markaad tukanayso waa xugun istinjoo waa xugun dahaarada ilaali waa xugun runta ku dhaqan waa xugun beenta ka fogaa waa xugun macnaha xugunkii islaamka loo hoggaansamo baa waxaa la yidhaahdaa sharci baa la yidhahdaa xugunkii islaamka oo loo hoggaansamo aan waxaan rabaa islaam baa la yidhaahdaa qofka marka waxa weeye islaamka ah shuruud buu leeyahy shuruuddaas hadda ka hor tartamada ama musaabaqooyinka la isku su'aalay dadka qaar baa ka jawaabi waayey laakiin kitaabkan haddii aad xafidaan waxaa idiin sahlanaanaya musaabaqooyinka iyo tartamada in aad si fudud su-aasha markii lagu su'aalo ku saabsan arrimahan in aad uga jawaabto su-aasha toddobaad maa hiya shuruudu lislaami islaamka shuruuddiisu waa maxay su-aasha waxaan rabaa sideedaad maa hiya shuruudu lislaami islaamka shuruuddiisu waa maxay shuruud qofka markuu soo muslimayo shuruud baa loo xiraa shardiga waxaa la yidhaha maa yalzamu min cadamihi alcadam waa shay haddii la waayo weyn baa ka imaanaysa bimacnaa shardigan haddii la waayo islaamnimana imaan mayso maa hiya shuruudu lislaam islaamka shuruuddiisu waa maxay jawaab shuruudu lislaami sittatun islaamka shuruuddiisu waa 6 oo bal 6daa ii tiri albuluuqu waalcaqlu waaliikhtiyaaru wاlnudqu biالshahaadatayn lilqaadiri calayhima wاltartiibu wاlmuwaalaatu intaas weeyaan shardiga koobaad oo qofka soo islaamaya laga doonayo albuluuqu waa qangaarnimo islaamka bilowgiisa sayidina cali isagoo saqiira buu soo islaamay oo 8 jir ama 10 jir ah laakiin waktigaa islaamka waxaa la yidhaahdaa markuu xoogaystay wixii ka dambeey shuruuddan baa loo xiray shuruudulislaam baa laga fiirinaya qofka soo islaamaya bimacnaa hadda canug yar oo gaalada ka mid ahoo macnaha ilmaheeda hadduu yidhaahdo canug yaroo 7 jira anugu waa muslim baan ah
la odhan mayo tabaciya hadduu waalidkiisu soo islaamo canuga gaalka hooyadii aabbihi hadday soo islaamaan asaguna tabaciyo ayuu ku raacayaa ayagoo ku xugun yahay maxaa yeele nabigeenna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam maa min mawluudin ma jiro mid la dhalaahi ilaa yuuladu waxaa lagu dhalaa fitrada islaamka fa abawaahu yuhawidaani ow yunasiraani yuhawidaanihi ow yunasiraanihi ow yumajisaani aabbihii iyo hooyadii hadday gaalo yihiin canuga saqiirka ah gaalada iyagoo ku xugun noqonaya haddii aabbihii iyo hooyadu ay yihiin muslim iyagoo raacaya tabaciyaa la yidhaahdaa marka laakiin qof wax canug yaroo saqiira hadduu yidha anaa hadda muslimaya oo gaalada ka mida muslim noqon maayo maxaa suuragal u noqo weydi shardigan baa la waayey albuluuq qofka soo muslimaya waa inuu qaangaar ahaado kow waalcaqlu waxgarashaa la shardiyaa haddii uu yahay qof waalan oo yidhaa islaamkii baan ku biiray may shardiga saddexaad walikhtiyaaru doorasho laa ikraaha fi ddiin haddii inta la qasbo dhegta qora laga saaro gaalka la yidhaahdo ku dhawaaq tawxiidka ee uu yidhaha ashhadu an laa ilaaha ila allah may muslim noqon mayo waa lagu qasbay qalbigiisa ha ka soo go'do markuu isagu cabsado oo diintii jeclaado oo diinta islaamka macaankeeda arko hadduu yidhaho muslimka islaamkii baan qaatay okay weeyi shardiga afraad wanudqu bishahaadatayn in lam yakun lilqaadiri calayhima soo socotaba wanudqu bishahaadatayn labada shahaado waa inuu ku dhawaaqo waa in uu yidhaha qofku markuu soo islaamayo ashhadu an laa ilaaha ila allahu wa ashhadu anna muxammadan cabduhu wa rasuuluh waa in loo sheegaa macnaheeda oo uu fahmaa macnaha looga jeedo in ay tahay ilaahay iyo rasuulkiisaan qiray wax walba oo ilaahay diidana waan inkiray ilaahay iyo rasuulkiisaan rumeeyoon raacay waa inuu ku dhawaaqo lilqaadiri calayhima qofkii awoodaa la yidhi maxaa baxay al akhras haddii uu yahay qof hadalka ku xidhan yahay oo gaal ah oo doonaya masalanba inuu soo islaamo ma waxaad odhanaysaa qofka aan hadli karin islaamnimo ka ansixi maydo may way ka ansixee ishaaro wa ishaaratu lakhrasi ka nudqi naadiqi baa la yidhaahdaa hadalka ayuu la mid noqonaya mar hadduu ishaaro ku hadla macnaha fartau ku fiiqaya marka inuu islaamayo shardiga shanaad watartiibu waa in la tartiibiyo shahaadateynka waa inuu marka hore yidhaha ashhadu an laa ilaaha ila allah kabacdina waa inuu yidhaha wa ashhadu anna muxammadan rasuulullah laakiin markuu soo islaamayo hadduu si khaldan tawxiidka ugu dhawaaqo oo yidhaha ashhadu anna muxammadan rasuulullah oo haddana ilaahay daba mariyo may ka ansixi maydo shardiga ugu dambeeyo oo lixaad oo shuruudda islaamka laga fiiriyo waalmuwaalaatu xiriirin weeyi xiriirinta waa maxay waa in uu isdaba dhigo ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxammadan rasuulullah ee haddii uu hal mid kaliya ku dhawaaqo oo yidhaha ashhadu an laa ilaaha ila allah maanta hadduu yidhaahdo berrina hadduu yidhaha wa ashhadu anna muxammadan rasuulullah ma ansaxayso waa in labadooda laga maqlo marka shuruudulislaam haddii lagu su'aalo shantaas ee lixdaas weeyi shicir baa lagu dabdiyaa waxaa la yidhaahdaa shuruudulislaami bilaa ishtibaahin caqlun buluuqun caadamu likraahi wanudqu bishahaadatayn walwilaa kadalika tartiibu faclam wacmalaa shicir baa lagu dabdiyaa shuruudulislaami bila ishtibaahin shuruudda islaamku shaki la-aan caqlun weeye buluuqun qaangaarnimo weeye cadamulikraahi waa inaan qofka la qasbin ikhtiyaar weeye wanudqu bishahaadatayn waa inuu labada shahaado ku dhawaaqo walwilaa xiriirin kadalika tartiibu tartiibna waa la mid ee faclam ogow oo wacmalan ku camal fal weeyaan waxaanu gelaynaa su-aasha sagaalaad maa hiya maxay tahay qawaacidulislaami islaamka qawaaciddiisu waa maxay qawaacidulislaam arkaanulislaam way isla mid tiirarka islaamka haddii lagu su-aalo fudayd bay idiin tahay taasi qof kastaa waa yaqaan sida badan inkastoon ku arkay waddankan dad qaangaaro ah oo arkaanulislaam aan oqoon arkaanul iimaanna aan oqoon hooyadood iyo aabahood waxay ku leeyihiin soomaaliya baan ka nimid annagu sidaas baan nahay waa kuwaana gabdhahaygii iyo wiilashaydii haye bal sheega arkaanta islaamka meeqa tiira islaamku leeyahay ma naqaan yoved inta waddankan saas baa laga yidhahdaa yoved inta ma garanayo
ma garanayo kuleeyihiin maba garanayaan waxa looga jeedan ma aan ogi aniga ma garanayo waxaad sheegayso laa ilaaha ila allah muxamad rasuulullah bal ka warrama walaalayaal waa tiirarkii islaamka maba dhisnaba qofku arkaanta iimaanka ii sheeg ma garanayo nabi moxamed magaciisa muxuu ahaa may nabi moxamed aniga ma aqaan fornaamka iyo efternaamka iyo waxii kala sheeg maxaad uga jeedaa waa dhiban yihiin dadka aaday u dhiban yihiin waa la caydan yahay cilmiga xaggiisa iyo diinta aad baa looga caydan yahay loomana soo jeeda walaalayaal in la barto oo kutubta lagu soo tixmo dadka nuuca ah oo diinta loo ogolaado wax loo ogolaado ama waqti loo ogolaado diyaar looma ahan culummadiibaa waxay ku hayaan waxa la barto dadkiina waxay leeyihiin may annagu firaaqooma hayno mashquul kalaan ba iska nahayba dhibkaas baa jira marka qawaacidulislaam waxaa looga jeedaa tiirarka islaamka maa hiya maxay tahay qawaacidulislaami islaamka tiirarkiisu waa maxay tiirarka islaamku waa maxay waa su-aashii sagaalaad jawaabteedu qawaacidulislaami islaamka tiirarkiisu 5 weeye shahaadatu an laa ilaaha ila allahu ilaahay mahan ilaah kaloo la caabudaa in uusan jirin waa in aad qirto kow wa ana sayidana muxammadan sayidkeena dadaaba sayidka diidan bidcada ma maqli karaan adoo dhahaya allaahuma salli calaa sayidina muxamed nabiguna calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisa saxaabi ka midahoo sacad la yidhaahdo wuxuu yidhi quumuu lisayidikum sayidkiina u istaaga oo sacad aaba nabigu sayid ku tilmaamay see macnaha waxa weeye nabiga sayid loogu diidi karaa see sayid loogu diidi karaa allahu akbar sayidana cumar muxuu dhihi jiray abubakar waa sayidkeennii actaqa sayidana sayidkeennii buu xoreeyey abubakar baa noo sayida oo sayidkeennii bilaal buu xoreeyey bal fiiri asxaabtii nabiga nabigeennu calayhi salaatu wasalaam sayidnimuu isku tilmaamay wuxuu yidhi qiyaamada haddii la yimaado ana sayidulawaliina waalaakhiriina yowma alqiyaama maalinta qiyaamo ummaddii hore iyo ummadaha dambe anigaa sayidkoodii ah nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam waa sayidkeennii aan qiyaamada shafaacadiisa u baahnayn sala allahu calayhi wasalam waqtiyadii hore dad sayid nabi moxamed u diida waxaa laga maqli jiray shiicada jidkaa hadda waxaa ku taagan oo ilal aana allaahuma salli calaa sayidina markaa tiraa kula dagaalamaya qolada la yidhaahdo wahaabiyada la yidhaahdo waddadoodii bay ku taagan yihiin qawaacidulislaam 5 shahaadatu an laa ilaaha ila allah wa ana sayidana muxammadan sayidkeena nabi muxammedana rasuulullah ilaahay rasuulkiisii inuu yahay waa inaad rumaydaan nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam hadda waxaa jira walaalayaal sideedaba shahaadateynka arkaan bay leeyihiin kitaabka matnigiisu ma qorin laakiin hadda ka hor baan isku sheegnay shahaadateynka arkaantoodu waxaa la yidhaahdaa arkaanu shahaadateyn baa la yidhaha tiirar waxaa jira ashhadu an laa ilaaha ila allah nafteeda 5 tiir bay leedahay oo 5taa waa maxay shaahid mashhuudu lahu mashhuudu calayhi mashhuudu bihi iyo siiqa baa jidha weeyaan shaahid maxaa la yidhaahdaa muwaxidullah wa mu'minu birisaalati rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam qofka ilaahay qiraya oo nabi moxamed rasuulnimo u qiraya ilaahayna waxidaya waa shaahid ashhadu markaad leedahay waxaad ka marakacee ilaahay inuu waaxid yahay nabi moxamedna ou rasuulkii rabbi soo dira yahay sala allahu calayhi wasalam rugniga labaad oo tawxiidku leeyahay walmashhuudu lahu baa la yidhaahdaa midka wax looga marakacayo yaad u marakacee oo inuu waaxid ya uga marakacee huwa allahu subxaanahu wa tacaala ilaah baa looga marakacaya rasuul inuu yahay aad uga marakacee nabiyuna moxamed sala allahu calayhi wasalam waa midkii wax loo qirayay rugniga saddexaad mashhuudu calayhi baa la yidhaha midka lagu dul marakacayo ilaahay inuu waaxid yahay baan ka marakacay markaad leedahay qofka inkirsan ood ku dul marakacaydo ood leedahay beenlow baa tahay waa maxay aljaaxidu biwaxdaaniyati illaah birisaalati rasuuli illah sala allahu calayhi wasalam qofka diidan ilaahay waaxidnimadiisa iyo rasuulka rasuulnimadiisa waxaad ku dul marakacee ilaahay inuu waaxid yahay oo rasuulku rasuul ilaahay yahay rugniga afraad walmashhuudu bihi baa la yidhaah mid shayga laga marakacayo waa maxay ihbaatu alwaxdaaniyati lilah wa ihbaatu arisaalati lilah
rasuulnimada iyo waaxidnimada ilaah ayaa laga marakacaya oo la qiraya. rugniga shanaad asiiqa weeye, waa dhawaqa lagu dhawaaqayo. siiqadu waa maxay? aliqraaru bidalika billisaan, carabkaaga waa inaad uga dhawaaqdo ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu ana muxammadan rasuulu llah. waa shardun liijraa'i alaxkaami asharciyati diiniyati weeyaan. qofkii islaamka soo gelaya qalbiga hadduu ka niyeysto ilaahay inuu waaxid yahay, nabi moxamedna ou yahay rasuul ilaahay soo diray, muslimiintu ma odhanaysaa waa muslim? may. hadduu hadli karo waa inaan afkiisa ka maqalnaa tawxiidka. sidaas baa la yidhaahdaa. waa inuu macnaha waxa weeye, laakiin awlaadu waxa weeye muslimiin oo kaleeto, qofkii islaamnimo ku dhashay isaga la odhan maayo tawxiidka waa in lagaa maqla. haddii lagaa maqli waayo gaal bata la dhihi maayo. maxaa yaele muslimka waaba ku dhashay, haduusa ilaahay iyo rasuulkiisa inkirsanayn, waxay u diraan ou la imaanayo, lagu qasbi maayo. afka hadaad uga dhawaaqeen muslim baa tahay shardi looga dhigi maayo. calaa xaasil rugniga koobaad tiirarka islaamka waa tawxiidkao la qiro. rugniga labaad waa iqaamu salaati, waa salaadoo la ogo. waa qawaacidda midka labaad, tiirka labaad. salaadoo la ogo waxaa looga jeedaa la tukada maahan, la oogo, arkaanteeda lala yimaad, shuruuddeeda lala yimaad. haddii uu ka tago arkaanta ama shuruudda waxaa la yidhaahdaa salaada ma oogin qofkaas. cibaadadu waxay u qaybsantaa laba qaybood, badaniya iyo waxay u qaybsantaa qalbiya. cibaadada la yidhaahdo badaniyada oo jirka laga sameeyo, salaada ugu horayda, iyadaana ugu fadli badan. soonkaa ku xiga, xajkaa ku xiga, xagga fadliga sekadaa ku xigta. faradka salaadu farad oo dhan isagaa ugu fadli badan. sunnada salaadu sunna oo dhan iyadaa ugu fadli badan. waxaa la yidhi sekada haddii aadan xoolo haysan waa lagaa cafinayaa. soonka haddaadan awoodin waa lagaa cafinayaa. xajka haddii aadan awoodin ma kugu waajibayo. soonka haddii aadan awoodin waxaa lagu leeyahay afaraa kuu bannaan, waagaad awoodo la imaad. sekada haddaadan xoolo haysan hadda maba haysatid. laakiin salaadu ma jidho walaalayaal meel layskaga cafinayo. salaadu ma jirto meel layskaga cafinayo. caqligaagu intuu joogo salaada waa lagaa rabaa. musaafir haddaad tahay, muqiim haddaad tahay, haddii aad jiran tahay, haddii dhakhtar aad ku jirdho oo lagu qalay oo waxa weeye aad halkaa ku sugan tahay, mar walba qaabkaad u tuka laheed diinta ilaahay way noo sheegtay, waana la iska rabaa weeyaan. cibaadada qaybta labaad waxaa la yidhaha qalbiyo. cibaado qalbiga ka dhacda sida iimaanka ilaahay la rumeeyo, macrifada ilaahay la barto, tafakurka ilaahay makhluuqaadkiisa lagu fakaro, ilaahay oo la tala saarto, sabarka oo lala yimaado, rajaha, khawfka, qadarta ilaahay oo la rumeeyo o lagu raadi ahaado, qalbigay ka dhacda cibaadadaas. nabigoo la jeclaado calayhi salaatu wasalaam. sifaadka xun oo qalbigaaga laga dahiro sida damaca, xasadka, xaqdiga. cibaadooyinka waxa weeye badaniga ah oo dhan way ka sii fadli badan tahay. cibaadaadka qalbigaha ka sii fadli badan. dhammaanna cibaadooyinka qalbigaah waxaa ugu fadli badan iimaanka. marka salaadoo la oogo rugniga labaad. rugniga saddexaad wa iitaa'u zakaati, sekadoo la bixiyo oo dadkii mutaystay la siiyo weeyaan. rugniga afaraad wa sawmu ramadaana, bisha ramadaanoo la soomo oo hadda aan ku jirno. ramadaankoo la soomo. ramadaanku 29 wuu ku dhammaadaa, 30na wuu ku dhammaadaa, laakiin 28 ma jidho. nabigeennu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi naxnu ummatun ummiyatun laa naktubu walaa naxsub ashahru imaa haakadaa wa haakadaa. bishu waa ama 29 ama waxa weeye waa 30. marka nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu soomay 9 soon ayuu soomay. 9kaas soon oo nabigeenna suubani ou soomay 8 ka mida waxay ugu dhammaadeen 29 maalmood. hal ramadaan oo ka midana nabigeenna wuxuu ugu dhammaaday 30kii ayaa u buuxsamay. marka soonku labada nuucba waa noqdaa. rugniga shanaad oo arkaanta islaamka wa xajulbeyti, kacbadoo la xajiyo weeyaan. liman qofkii istidaaca awooda ilayhi beytka sabiilan min sabiilin wadda ahaan u awooda. waa beytkoo la xajiyo
ama waxa weeye wujuub ama sunno ahaanba loo aado qofkii awoodaa la yidhi su-aasha tobnaad maa huwa aliimaanu iimaanku waa maxay iimaan baa haddana laga hadlayaa aliimaanu iimaanku huwa iimaanku altasdiiqu waa rumayn bimaa shay la rumeeyo jaa'a bihi maaga oo la yimid annabiyu sala allahu calayhi wasalam nabi moxamed wax kastoo la yimid waa in la rumeeyo nabigeenna calayhi salaatu wasalaam shaygii ou la yimid waa in uu qofku rumeeyo iimaan baa la yidhahdaa waa mutlaqu tasdiiq luqa ahaantiis sharcigana waa noocan waxaa la yidhi iimaanka waa shaygii nabigeenu la yimid oo la rumeeyo wuxuu leeyahay iimaanku arkaan buu leeyahay arkaanta iimaankaa la yidhaha waana tan su-aasha 11 oo kitaabkeenna xayaatulislaamka maa hiya qawaaciduliimaan iimaanka tiirarkiisu waa maxay qawaaciduliimaani iimaanka qawaaciddiisa ama tiirarkiisu 6 weeye iimaanku wuxuu leeyahay 16 tiir buu leeyahay hadda arkaanta iimaanka iyo arkaanta islaamka oo midna ay tahay 5 midna ay 6 tahay nabigeenna calayhi salaatu wasalaam xadiidkiisaan ku soo qaadanay 40 iyo kulli aan ku soo marnay nabigeenna markii la su'aalay oo malakul jibriil ou su'aalay arkaanta islaamka waa 5 buu yidhi arkaanul iimaanka marka la su'aala nabigu waa 6 buu yidhi calayhi salaatu wasalaam marka qawaacidul iimaan tiirarka iimaanku 6 weeye iimaanka sidiisa waxaa loo qaybiyaa 5 martabo 5 martaba loo qaybiyaa iimaanu taqliidin iimaanu cilmin iimaanu cayaanin iimaanu xaqin iyo midka shanaad oo ah iimaanu xaqiiqatin 5taasaa iimaanka loo qaybiya 5toodaas 2 qayb oo ka mida ayaa naga suurtagala oon awoodna iimaanka qaybta koobaad iimaanu taqliid baa la yidhaha taqliidka waxaanu ku gaari doonaa kitaabka la yidhaha jawharatu tawxiidka wahwa aljasmu biqowli اlgayri min gayri macrifatin waxaa la yidhaahdaa waxa weeye waa qofku in uu qabsado alأkhdu biqowli اlgayr macnaha waxa weeye hooyada iyo aabbaha caqiidadii bay kuu sheegeen nuucaan rumay waad qaadatay waad go'aamida shakina kaagama taagna marka waxa weeye haddii aad cilmigeedii bara karto ood bara weydana meesha hadda waxaa ku jiraya waxa weeye cisyaan iyo dembiba ha kaa soo raaco gaboodfalkaa laakiin iimaan taqliidaa la yidhaahdaa waana sax qaybta labaad iimaanu cilmin weeye iimaanu cilmi weeye wahwa macrifatu alcaqaa'id biadilatiha cilma alyaqiin waa inuu qofku caqaa'idka adiladoodii barto dadka ahlu daliilka iyo xujada fahmi kara oo cilmiga fahmi karay arrintan u sugnaatay qaybta saddexaad iimaanka waxaa la yidhaha iimaanu cayaan waa macrifatu llaahi bimuraaqabati alqalbi qalbigaaga mar walba ilaahay inaad ka muraaqabaydo ucbud allaha kaannaka taraahu mar walba ilaahay waa inuu qalbigaa saa ugu taagnaado oo marnaba aadan darfatu cayn qalbigaa aadan ka maqnaanin fayacbudu rabbah kaannaka yaraahu caynulyaqiin baa la yidhaahdaa dadka ahlu kashfiga iyo ahlu bayaanka ah oo wax fahmay oo awliyada ilaahay baa darajadaa gaaray iimaanu cayaan ama iimaanu yaqiinka ayagaa gaaray qaybta afaraad iimaanu xaqin baa la yidhaah waa qofku ru'yatullaahi biqalbihi waa maqaamu lmushaahada xaqulyaqiinka dadka ahlu shuhuudka ahlu cayaanka ah ayaa gaaray waa inuu qalbigiisa mar walba ilaahay uga muuqdo oo qalbigiisu ka ilaalinaya qaybta shanaad iimaanu xaqiiqa alfanaa'u billaah wasukru bixubbih falaa yushaahidu ilaa iyaahu mar walba ilaahay buu macnaha waa xaalatulfana xaalad la yidhaahdo ayuu ku jiraaho makhluuqoo dhanba waa ka maqan yahay qalbigiisa waxaa ku taagan oo u muuqda kali ah ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahay baa oo ka hor muuqda macnaha makhluuqiyoo dhan ma dareemayo cabsi ilaahay baa qalbigiisa ugu taagan ilaahay baa waxa weeye ayuu ilaahay baa subxaanahu wa tacaala qalbigiisu oo ku mashquulsan yahay
sida qof bad ku dhacaa la yidhi aan xeeb lahayn baddaasuu hada iyo waxa weyse uga bixi lahay marka isaguna ilaahay buu sidaa qalbigiisa ugu maqan yahy marka qaybahan dambe oo dhan qaybo aan garanayno ma ahan calaa xaasil waa culuum rabbaani ah yakhtasu biha man yashaau min cibaadih dalika fadlullahi yu'tihi bihi man yashaa marka waxa weeye annaga waxaan laka doonayaa in aan caqaa'idkii rumayno oon cilmigeedana baranno calaa xaasil taasaan fahmi karnaa dadkana waxay fahmi karaan baa loo sheegaa sidaasay kutubtu qorayaan arkaantii iimaanka waa tan wahiya arkaanta qawaacidda iimaanku aliimaanu billaahi waa ilaahayoo la rumeeyo ilaahay baad rumaynaysaa waaxid inuu yahay daatada xagga sifada xagga ficilka wax shabahaa ma jiraan daatadiisu ma qaybsanto waxa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala hal sifou leeyahay sifo walba waa hal xabo cilmigiisu waa hal ma tacadudayo wahaakada ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ilaah waaxida wax shabaha ma jiraan wax lamida ma jiraan laysa ka midlihi shay-un falaa tadribuu lilahi alamhaal buu ilahay qur-aanka nagu yidhi afaman yakhluqu kaman laa yakhluqu afalaa tadakkaruun ilaahay marka subxaanahu wa tacaala laa ayna xaggee joogaa waxaa la yidhi qofku afar arrimood ilaa uu ka dheeraado iimaankiisu ma buuxsamayo ayna kayfa mataa kam afartaa ilaahay layskuma su'aalo ayna ilaahay xaggee ahaaday ma sida qof bini aadamaha war hebel xaggee joogaa waddankee joogaa waddankaasuu degan yahay ingiriiskuu joogaa xaafaddaas ma sida qof bini aadama ilaahay goobaynaa ayna ilaahay layskuma su'aalo ayna layskuma su'aalo maxaa yeelay ayna waa su'aalun can makaanihi ilaahay booskuu jooga baad baadi goobaysaa wahwa muxaalun laa maxaalata liannahu su'aalun can makaani man laa makaana lah ilaahay makaan ma leh meel sida bini aadamka loogu soo hagaago oo la yidhaha meeshaas goonida ahow joogaa koonkoo dhan oon jirin oon cir jirin oon dhul jirin ayuu ilaahay ahaa kaana allaahu walaa shay-a ilaahay wou ahaada buu yidhi nabigeennu xadiis bukhaari ah kaana allaahu walam yakun shay-un hayrah shay kaleeto oon jirin buu ilaahay jiray wahwa al'aana calaa maa kaana calayhi awalan awal hore siduu ahaa ayuu yahay laakiin carshigow joogaa iyo meel heblow joogaa iyo war sida bini aadamka ilaahay makaan how sugin fircoon baa dhihi jiray kor baan ilaahay ka soo baadi goobayaa ma fircoon baa tah ma caqiidadiisii baad aaminsantaha xaggeed ka soo raadinaysaa waan arki doonaa nimanka la yidhaahdo raafidada iyo bidcooyinka insha allah kutubaha dambaan ku arki doonaa caqiidada ayagaa meel gooni a dhihi jiray ilaahay meel gooniya oo ku xadaysan yahay oo ku kooban yahay marka sidaa ha odhan haddaadan waxa weeye dariiqii bidcada ku soconin sidaa ha odhanin ilaahay subxaanahu wa tacaala lama odhan karo kayfa huwa sidee yah liannahu su'aalun can kayfiyati man laa kayfa lah ilaahay kayfiye layskuma weydiiyo oo waxa weeye nuucow yaal iyo nuucow yaha iyo alkayfu kayf layskuma su'aalo mustaxiil bay ka tahay ahlu sunna waljamaaca oo dhan ilaahay waxay ka nasahan can almakaan waalxuduud waalzamaan waaltacadud wayaquuluuna alcajzu can idraaki illaahi idraakun waalbaxhu can daati illaahi ishraakun saasay ku leeyihiin ilaahay makaan laguma tilmaamo xad meel go'an oo ku xadaysanya lama yidhaahdo zeban go'an taariikhda noocaasabuu ilaahay yimid ama uu dhammaan doonaa lama dhihin karo tacadud laguma tilmaamo kow labo saddex may ilaahay idraagiisa inaad ka cajisto oo tiraa anugu ilaahay tilmaamihiisan rumaynaya ilaahay waa alla waaxida idraakun ayadaaba lagu haleeli karaaba masalada saxda ah laakiin daatadiisa inaad baarbaarto waa ishraakun baa la yidhi sayidina abubakar asidiiq ilaahay raadiha ka noqda saxaabiga wuxuu odhan jiray alcajzu can darki alidraaki idraakun haleelid laga cajiso daatada ilaahay baan haleelayaa inaad tira ood ka cajisto baa idraag ah wuxuu kaloo dhihi jiray subxaana man lam yajcal lilkhalqi sabiilan ilaa macrifatihi ila bilcajzi can macrifatihi fahuwa subxaanahu tacaala caliimun qadiirun samiicun basiirun laa yuusafu cilmuh wa qudratuh wa samcuh wa basaruh mima yuusafu bihi almakhluuqu walaa xaqiiqatuhu wakada culuwuhu waistiwaa'uhu ida asifatu
tatbacu lmawsuufa ayaa la yidhaahdaa wuxuu dhihi jiray sayidina abubakr man lam yajcal lilkhalqi sabiila ilaa macrifatihi ila bilcajzi can macrifatihi buu dhihi jiray subxaana waxaa xumaan ka hufnaaday ilaaha aan khalqiga waddo uga yeelin in ay daatadiisa bartaan ilaa bilcajzi can macrifatih inay macrifadiisa ka cajisaan mooye ilaahay waa ilaah caliima wax walba og awooda maqlaya arkaya cilmigiisa iyo awooddiisa iyo samcigiisa iyo aragtidiisa makhluuqa tilmaantooda la mid maaha ilaahay waa sarreeyaa marka la leeyahay sarraynta adiga taadaaho kale maahan alraxmaanu cala alcarshi istawaa marka la leeyahay istawahan adigu aad taqaano iyo midka adigu aad meel ku sin maydo oo kale maahan ilaahay marka rumay marka lagu leeyahay waxaanu rumaynaynaa ilaahay sida uu isku tilmaamay in aad ku tilmaantiin weeyaan oo nuuca aan ku tilmaanno walaalayaal ma aha inaan dhahno sida bini aadamka oo kaleeto ilaahay gacan buu leeyahay jaarixa ah oo gacantaydan la mid ah taa waa xaaraam waana caqiida la'aan islaamka looga tegayo looga baxayo makhluuq ayaa ilaahay lagu shabahin wa hiya aliimaanu billaahi arkaanta iimaanka midda ugu horreyda u fiirso rugniga koobaad waa ilaahay oo la rumeeyo ilaahay baa la rumaynayaa subxaanahu wa tacaala ilaahay buu rumaynayaa rugniga labaadna waa maxay wa malaa'ikatihi ilaahay malaa'igtiisaoo la rumeeyo weeyaan malaa'ikatullah ilaahay malaa'igtiisa la rumaynaya iyaga naftooda hadda ilaahay malaa'igtiisa la rumeeyaa marka la leeyahay malaa'igtu waa ajzaam ladiif nuuraaniya jacala allahu lahum quwatan cala atashakul biashkaalin mukhtalifa malaa'igta waxaa la aaminayaa sida bini aadamka dumar maaha ragna maaha ilma ma dhalaan tanaasul ma leh ilaa qiyaamadu ka dhacdo ma dhimanayaan malaa'igtu waxay ka samaysan yihiin nuur jismi oo nuuraani ah weeyi waxay awood u leeyihiin bini aadamka inay isku shabbahaan ma ahan niman dumarna maahan labeebshana maahan aabba male malaa'igtu hooyana ma leh wax walbay sheegaan run bay ku sheegayaan laa ya'kuluun walaa yashrabuun malaa'igtu wax ma cunaan waxna ma cabaan malaa'igtu ma isguursadaan waxna ma dhalaan malaa'igtu wax ma hurdaan sida annagoo aan u hurudno oo kale malaa'igtu ilaahay kuma caasiyoobaan sidaan u caasidno oo kaleeto malaa'igtu ilaa qiyaamadu ka dhacdo buunka marka koobaad oo la afuufo ka hor ma dhimanayaan malaa'igtu takaaliif waajiba ma saarna sideenoo kaleeto malaa'igta waxaa la yidhaha acmaasha ayagu ay sameeyaan lama qoro maxaa yeele ayagaaba wax qora malaa'igta qiyaamada lama xisaabinayo leanna iyagaa wax xisaabinaya malaa'igta camalkooda lama miisaamo ayagaa wax miisaankii iyo hawshiiba qabanaya sayi'a waxaan rabaa camalkooda lama miisaamo maxaa yeelay waxa weeye hadda sayi'a ma lahan malaa'igta waxaa la soo xashirinayaa qiyaamada insiga iyo jinniga iyo malaa'igtaba qiyaamada la iskugu keenaya malaa'igtu waxay u shafaaco qaadayaan dadka bini aadamka ah oo dambaabay leanna waxaa shafaaco qaadku u sugnaaday nabigeennaa bilaabaya sala allahu calayhi wasalam waxaa shafaaco qaadaya ambiyada waxaa shafaaco qaadaya malaa'igta waxaa shafaaco qaadaya cibaadullahi saalixiin baa la yidhaahdaa malaa'igtu jannada ayay gelayaan mu'miniintana jannaday ku arkayaan malaa'igta 10 malag oo ka mida inaan baranaa wujuub bay nagu tahay tafsiilan sida malagga la yidhaha jibriil malagga la yidhaha casraa'iil malagga la yidhaha mikaa'iil malagga la yidhaha israafiil malagga la yidhaha ridwaan malagga la yidhaha maalik malagga la yidhaahdo raqiib iyo catiid iyo labada malag oo la kala yidhaahdo munkar iyo nakiir 10koodaas hal waa inaad u kala taqaano marka malaa'igta ilaahay rumay marka la leeyahay qofkii ku tilmaama dumar ku tilmaama gaaladii waqtigii nabigeenna joogay calayhi salaatu wasalaam waxay dhihi jireen almalaa'ikatu banaatullah malaa'igtu waa gabdho ilaah bay dhihi jireen baa layidhi waa gabdhihii ilaahay taasoo la yidhaahdana diintaa looga baxayaa malaa'igtu maba ahanba bini aadamkan ama dumar ama raga maba lagu tilmaamo hal malag oo kale ah adduunka waxa ku nool oo dhan haddii loo soo diro ee la yidhaah ayaga dhan soo baabi'i waa ka awood badan yahaa la yidhi malaa'igta ilaahay tusaale ahaan malakul jibriil oo kaleeto 600 oo baallood buu leeyahay haddii uu waxaa la yidhi mid ka mida fidiyo qorraxdu meeshay u soo dhacdo iyo meeshay ka soo baxdo waa kala gaaraya baa la yidhi marka waa inaad rumayso wa malaa'ikatii ilaahay malaa'igtiisa rugniga saddexaad oo arkaanta iimaanka wa kutubihi ilaahay kutubtiisa waa in la rumeeyo kutubta ilaahay oo samaawiga ah oo ilaahay soo dejiyey oo rususha lagu soo dejiyey looxul maxfuudkay ku qoranta
ama malaa'igtii baa waxa weeye carabkoodii laga maqlay oo mal ay ka dhegaysteen ambiyadu ama min wiraa'i xijaab bay uga dhegaysteen ambiyadu ilaahay ama ilaahay kalaamkiisii oo dhan baa soo gelaya kutubta ilaahay waa inaad rumayso waxaa laga macnaha waxa weeye kutubta ilaahay waa inaad rumayso waxaa laga macnaha dahiray taqyiir waxa la yidhaahdo tabdiil in la bedelo inay iska hor yimaadiin laxni in laga helo kitaabka ilaahay oo la yidhaha qur-aanku meeshaan laxni baa uga jidha kalaamka ilaahay soo dejiyey sida af carabiga oo kaleeto qof baa qalad iskaga dhawaaqaya laakiin ilaahay qalad kuma dhawaaqo nabi moxamed suubanaheenna calayhi salaatu wasalaamna qalad kuma dhawaaqo marka laxni lagama heli karo icraabtiisa qaldan lama odhan karo kelimadan binaheeda xagga sarfiga qaldan lama odhan karo xagga sarfi ahaan asixa waliclaal xagga naxwi ahaan taqdiim iyo ta'khiir xagga xuruufta iyo aswaab sida bini aadamka shabahow leeyahay kalaamka ilaahay lama dhihi karo wax walba oo kalaamka ilaahay iyo kutubta ilaahay ku dhex jiraa waa xaq qur'aankeennu masalan wuxuu tusinayaa falqur'aanu wa naxwuhu yadullu maa tadullu calayhi sifatu alqadiimatu alqaa'imatu bidaati illaahi subxaanahu wa tacaala marka waxa weeye qur'aanka waa kutubta ilaahay buu ka mid yahay haddee qur'aanku waa kitaabkii ilaahay soo dejiyey furqaan baa la yidhaahdaa towraadna waa kitaabkii nabiyullaahi muusa lagu soo dejiyey injiilna waa kitaabkii nabi ciise lagu soo dejiyey zabuurna waa kitaabkii nebi daa'uud lagu soo dejiyey suxuf badan oo nebi ibraahim iyo nebi muuse iyo ambiyadaa lagu dejiyana way jiraan dhammaantoodba ilaahay baa soo dejiyey afartaa kitaab iyo xaashiyahaaba ilaah baa soo dejiyey dhammaantood waa xaq kulligoodna waa la nasakhay qur'aankeenna lagu nasakhay oo ugu dambeeya wax ka dambeeyaana ma jiraan rugniga waxa weeye afraad wa rusulihi ilaahay rusushiisa waa in la rumeeyo rususha ilaahay soo diray waa inaad aaminsanaato makhluuqoo dhan ilaahay inuu rususha u soo diray si ay u hanuuniyaan oo ay u baraan arrintooda noloshooda iyo mucaamalaadkooda wixii wanaag u ah ummadda waa inay ka hufaan wixii nuqsaan ama naqsi macnaha waxa weeye u keenaya oo dhan ummadda waa inay macnaha ka celiyaan ayaga naftooda waxaa laga nasahay oo aan rususha lagu tilmaami karin nuqsaan ceeb boqonnimo waxa weeye danaa'annimo sidaas oo kale bakhiilnimo caqli daraan khiyaano been inay sheegaan kulli ambiyada ilaahay waa laga dhowray waxaa laga xafiday dunuubta oo dhan oo kama dhacayaanba ambiyadu ama rusushu waa kuwa ugu fadli badan addoommada ilaahay cadadkooda yaa yaqaan ilaahay bis baa yaqaana ambiyada yaa ugu horreeyey ama rususha nebi aadam yaa ugu dambeeyey nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam dhammaantood xaggee ku abtirsadaan nebi aadam bay wada galaan marka waxa weeye malaa'igta iyo ambiyadana hadda waxa aan rusushana waxaa fadli badan masalan nabigeenna iyo markii la isqaabiliyo malaa'igta ilaahay waxaa fadli badan rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam rugniga shanaad walyawmi alaakhiri maalinta aakhiro tiirarka iimaanka rugniga shanaad maalinta aakhiro waa in la rumeeyo maalintan waa inuu qofku aaminsanaado maalin jira inuu yahay oo maalin ka dambaynin oo laysi su'aali doono qabriga su-aashii malakaynka qabriga qofna waa lagu cadaabaa qofna waa loogu janneeyaa bacsi baa jira waa laysi soo noolay doonaa waa lays amaal mari doonaa acmaasha miisaan baa la saari doonaa siraadka la dul mari doonaa janno iyo naar baa jidha waxa weeye yoomkan yoomul aakhira waxaa loogu magacaabay habeen iyo maalin ka dambeeyaa ma jiro aakhiradu waxay ka bilaabataa yoomul aakhiruhu nafqada labaad mana dhammaataa la yidhi ama waxay ka bilaabataa jannada iyo naarta ummadda marka loo kala diro ama waxay ka bilaabataa qofku markuu dhinto man maata qaamad qiyaamatuhu qiyaamadiisii waaba dhacdayba marka waxa weeye waa yowmul aakhira la yidhaahdaa waxay ka bilaabataa dhimashada fa xiinaidin alqabru min alaakhira aakhirada ayuu markaa ku jiraa weeye rugniga shanaad rugniga lixaad walqadari qadarta waa in la rumeeyo khayrihi wa sharihi qadarta ilaahay ou qadaro khayr iyo sharba waa inaad aaminsanaato wixii ilaahay qadaro oo dhaca maxaa yeelay waxa weeye wax walbo ilaahay qadaro waa inaad aaminsanaato
وأن جميع أفعال العبد الاختيارية مثل القيام والقعود والأكل والشرب وتحريك اليد بالكتابة أو الإضطرارية مثل الوقوع والارتعاش بإرادة الله وحوال بقو كادعة ضد وحنطو ضد وحسميدو ضد وناك سميدو ضد دنب حتى سميدو قدر إله بيكون دعين قضاء إله بيكون دعين إرادة إله بيكون دعين لكن دنبك الله ما أرنكره دنبكان إن أن سميو إلهي با أمري هدا ترى ودنبك له لما ديه كره هدي ترى إلهي با راضي إيقاء ودنبك له لما أقوله دنبك إلهي راضي كما أها ضد كلام ما أمره وكذلك لما أرنكره شيء الذنبك إلهي با تعلاضين لما أرنكره marka dambiga kuma oo tacalluqo amarka ilaahay kuma tacalluqo maxabada ilaahay iyo ridada ilaahay intaas oo dhan dambigu lama xariiro intaas oo dhan waa ka bedelan yahay halka waxaanu ku soo koobaynaa darsigeennii koobaad ee ugu horeeyay kitaabka la yiraahdo xayaatul islaam fi macrifati sifaati illah wa sifaati rasuulihi al-a'zam sallallahu alayhi wa sallam darsigiisii koobaad baan intaa kusoo koobaynaa kitaabkaas oon dhahnay 108 masalo ayaa ku qoran waxaanu qaadanay 10 su'aalood oo ugu horeeyay su'aashii 11aad ma helmada hadda qaadanay 11 su'aalood baan ka qaadanay ilaahay ha nagu anfaco ilaahayna na fahamsiiyo darsigeena intaasaan kusoo koobaynaa wallahu waliyu tawfiiq wassalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته